annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu kala saaray waxa la yiraahdo teamkeena iyo tuugada waxa la yiraahdo tuugada waxa kamid ah ciidamada deegaanka qaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xureeyay xabadda ka bilaabay state house ka afkiisa kuna geeyay xagga jalalaqsi xaqna baraawe ciidankaas waxa loo yaqaan ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loo dhaqmay si ka daran loo dhaqmayta ciidamada kaleeto oo laga keenay gado galdogob meesha la yiraahdo buuhoodle caabud waaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran ciidankana si nominal u jiraahe waxa gacanta ku ay ka soo qaba hadda ciidamada gado ka jira waa xoogga dalka Soomaaliya la yiraahdo nin la yiraahdo kulanajiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiin ana madax u ah ninkaas uu tag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna marra ma hoosta ciidanka waa la siyaasadeeyay waa la korruptigareeyay waa la qabyaaladeeyay sidaan la socono hubka waa weyn oo la yiraahdo waxaan army vehicleska ahna dad qaasa loo dhiibaa dadka inta kalena waa laga ilaaliyaa qof kasto wax garanaya ciidanka waa laga saaray kii joogo la hurwaana ilqaasa ayaa lagu hayaa hubka la rabo ninkaan uu leeyahay ii sheegeen madaxtooyada maamusha ama qof meeshuu ka baxay waa loo yahay lama yaqaano ciidan gacanta oo gal lama yaqaano hadda sitimaankii la soo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacab loo qaybiyay marqaatigeedan anaga hayna waa loo yahay ciidamada la dhisay haleeslooga la isku ciidanka Eritrea la geeyo oo la geeyo qadar oo meelo kale la geeyo wax yaqaan la markay they are not part of national security ka jirkii marnaba qayb kama ah wixii la rabay dalka Soomaaliya in lagu sugo ciidanka Soomaaliyeed badqabka iyo amaanka shacabka Soomaaliyeed ciidamadaas colaad hurin dagaalo doorashooyin iyo dana qaasa loo adeegsadaa ee looma adeegsado sideedaba ujeedooyinkii loogu talagalay